markale waa anigoo Dr. Yaxya ugu baratay muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga. Mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay glaucoma. Daawasho wacan. Cudurka la yiraahdo glaucoma waa cudur dhammaan adduunyada saameeyay, xitaa khaasatan Soomaaliya gacan kulul ku hayo. Marka maanta video-gan waxaan kaga hadli doonaa muxuu yahay glaucoma oo ah cudur aragga dilo. Sidoo kale maxaa sababay cudurkan in uu aragga dilo? Waa waxyaabaha aan xoog u saari doono muuqaalkan. Marka koowaad, glaucoma wuxuu aad u saameeyaa neerfaha shabakada dambe indhaheena, ayadoo tartiib araggaaga u dhimanayo kadibna aad noqonayso wax la yiraahdo arag la'i ama arag la'aan ay kugu dhacayso. Marka waxyaabaha sababa oo ugu muhiimsan waxay tahay pressure-ka indhaha oo kor u kaco ama pressure-ka indhaha oo sare kaco. kadibna pressure-kaas markuu sare kaco wuxuu pressure saarayaa neerfaha oo ah meesha ugu jilicsan oo isha. Tusaale ahaan haddii aan ku soo qaato, haddii banooni oo kale haddii la aariyeeyo, meesha ugu horeyso oo qarxayso waxay noqonaysaa meesha ugu jilicsan. Inkastoo waxyaabaha ugu badan oo sababa ay tahay pressure-ka, laakiin waxaa jiro xaalado khaas ah oo la yiraahdo normal tension glaucoma oo ah xataa qofka haddii pressure-ka laga cabiro pressure-kiisa kacsaneen haddana uu qabo cudurkan la yiraahdo glaucoma. sidaa awgeeda waxay u baahan tahay baaritaano dheeri ah si loo ogaado qofka inuu qabo glaucoma. haddii aan sawir yar idinkaga muujiyo optic nerve oo ah meesha ugu badan oo aragga ka dhimanayo ah, waxay noqonaysaa sida carbon mise optic carbon oo ah sida koobka kale u eg meel duleesha. markii aan qofka dhakhtarka indhaha uu fiirinayo kale indhahaaga sida meel koob oo kale u arkaya, kadibna waxay noqonaysaa qofka diagnosis-ka ama dhakhtarka wuxuu ku dhihi doonaa waxaa qabtaa glaucoma. inkastoo jirto waxyaaba lagu cabiro aragga sida perimeter yiraahdo oo qofka aragga hareerihiisa lagu ogaanayo. sababtoo cudurkan waxyaabaha ugu koowaad uu saameynayo waxaa ka mid ah hareeraha aragga. oo hareeraha aragga ayaa ka soo yaraanayo kor geesaha hoos ilaa marka ugu dambeyso ay noqoto arag yiraahdo tube ama oo sida tubo kale inaad wax ka arkaysid oo kale oo hareeraha ma arkaysid. tusaale ahaan qofka kale salaada markuu ku jiro qofka midigtiisa ama bidixdiisa ma arkayo. haddii isha midig oo kale aragga uu glaucoma ama cudurkan uu qabo, waxaa laga yaabaa qofka midigtiisa salaada ku dukanaya inuusan arkin. haddii isha bidix oo kale ay qabto sidoo kale. marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee saameyso cudurkan la yiraahdo glaucoma ayaa ah aragga hareeraha. habka kaliya oo lagu ogaan karo ayaa ah baaritaan xeelo dheer sida perimeter lagu qaado dhakhtarkaaga indhaha uu ka ogaan doono. waxyaabaha aad kaga hortagi karta ayaa wuxuu noqonayaa baaritaan sanadla ah. ishan wuxuu leedahay aqueous fluid oo isha dhexdiisa ku jiro. markii uu sare kaco wuxuu saameyn doonaa optic nerve. sidaa awgeed waxyaabaha lagu daaweeyo ayaa noqonayo oo marka koowaadba xoog la saarayo in pressure-ka daawooyin loo qoro markaa pressure-ka lagu hoos loogu dhigayo, ama haddii markaa lagu guuleysan waayo pressure-ka in hoos loo dhigo oo daawo marka loo isticmaalo, waxaa kaloo jiri karto qaliin. guud ahaan daawadeeda ayaa ah in hoos loo dhigo pressure-ka markaa aad u sare kacsan ee indhaha ah. laakiin caafimaadka waxyaabaha uu ku guuldareysto waxaa ka mid ah in daawo saxa loo helin oo ahayn ka hortag. waxyaabaha ugu muhiimsan waxay noqonaysaa haddii xaaladda qofka lagu arko xilli hore in waqti hore la qabto. laakiin haddii xilli dambe qofka lagu qabto cudurkan dib looma soo celin karo wixii markaa uu beelay. sidaa awgeed waxaa muhiim ah xaaladan la yiraahdo glaucoma in xilli hore lagu fahmo, taas oo ku imaan karto in qofka sanad walba baaritaan indhaha ismarsiiyo si xaaladan khatarta ah ee loogu magac daray tuuga aragga si uu ugu badbaado. haddii aad videogan ka faa'iideysatay, like saar. waxaa inoo balnaa videogan video xiga. sidoo kale su-aasha maanta waxay noqonaysaa, ma taqaanaa qof ka mid ah familiyadiina ama qoyskiina oo cudurkan glaucoma qabo?